buuhoodle waxaa maanta soo gaaray wafti uu hogaaminayo taliye ku-xigeenkii hore ee ciidanka daraawiishta Puntland General Der Xaaji Cabdi oo dhawaan kaga dhawaaqay magaalada Garowe inuu iska casilay xilkaasi kadib markii uu sheegay inuu dayaclaan soo food saartay ciidamada daraawiishta Puntland. waxaa ka qayb galay soo dhaweyntiisa saraakiisha ciidamada daraawiishta buuhoodle ku hubeysan gaadiidka dagaalka waxaana madashii lagu soo dhaweynayay taliyahan ka hadlay qaar ka mid ah saraakiisha ciidamada buuhoodle oo sheegay inay taliyaha ay garab taagan yihiin musharaxnimadiisa uu ku dhawaaqay oo xilka madaxweyne ku-xigeenka Puntland. أنا أباندولها عيدك دراويشة بودلان وحن ما تعدينا عاد ما أقول فرحان ولي بوانين أقول له درجة قرب على سارة أكاديمي بوه هذا واحد يقدم بيسبانه مالنا أروسي ما حسبك ما قرأتي مرقول تلي حقين كعيدك دراويشة كواد سنة الدير أو عادي أدم كوسولو إن تلي ولي مبدأ أي هدف كعطي بان كوسولو ويننا يبقى كاغا waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadba taliye ku soo dhawow gobolka Cayn ciidanka daraawiishta aaga Cayn adigoo ah musharaxa madaxweyne ku-xigeenka Puntland waxaan ku waanbalyeynaa anta waxaan ka codsanaynaa hadaad madaxweyne ku-xigeenka weydo inaad Soomaaliland iyo cadowga Puntland u kicin aad garab naga dhigtaan garab ku noqon waxaan kugu soo dhaweynay ragga aad xumaansateen inay ku arkaan inaad meel aad ka timid gobol nool oo dadkiisu nool yahay oo ciidankiisu nool yahay aad u dhalatay inaad leedahay baanu tusaynaa dadka talabaadna waxa weeye dhibaatada ku haysataa annana waan haysataa ciidanka daraawiishta ee buuhoodle jooga wax xuquuq oo haba yaraatee loo keena ma jiro xuquuqdiisina waxaa lumiyey rag dana gaara leh ayaa xuquuqdiisii lumiyey hadday taakuleen tahay rag gooniya haysta hadday qori tahay rag gooniya haysta ciidankiina waxaa la yidhi halkaas waa fadhiid oo halkaas u fadhiya ciidankii ku soo dagaalamay deegaankan waxaa lagaga warbixiyey ciidankaasi waa fadhiid oo waxba ma ogola haddaba waxaan u sheegaynaa inaanaan fadhiid ahayn ciidankii gobolkan difaacay aanu nahay waxaanina inay iska dhammaan doonaan laakiin kuwii Puntland dhistayna aanu nahay ayaa farxad ii gelisay فرحان ولقي إلاوي كرين ولقي ما إلاوي ما تجبا ما إلاوي فرحان سمحت هاي إذا كي دراويش بوتلان قبل كعين أو شيرسان مدحدي سي أردن هذه أدمن فرحان هاي إن المنطقة كله madaxdu kale waxay maqashay inaan iska casilay xilkii aan u hayay ciidanka sababta qudina intiina badan waa garan kartaan laakiin ninka aan garanayn ayaan rabaa inaan u cadeeyo waxa weeye ciidankii Puntland waa baaba'ay waa burburay sabab u burburay haddii maska madaxa laga dilo soo dhiman maayo ciidankii Puntland waxa laga dilay taliskii guud taliskii baa laga xidhay meeshii taliyaashu joogeen ee hogaamadu joogeen ee waaxuhu joogeen ee laamuhu joogeen ayaa waxa laga dhigay dabka la saaray nimankaasaa ku talagalay laakiin kamay mahaashin waa looga wada tegayaa بريء دوّده ويمد نكلي له مدحوينها فرماشو وقروا يمد إذا كي بوتلان ثالث كشوي بام بويد والله قراحي داو مقاسم مدحتوله لو وديه بروح اسم حيين أيام مدحوينين مقاسينا وحرتي تموين تو دربان تمانسة يقولوا حيتوني إلو يماتو تاسع هالقاسة لقيه باتشي عارفين تانا halkaas laga baaji anigu ka tagideedii waxaan soo maray taliya horin abaandula urur taliya urur abaandula guuto taliya guuto abaandula gaas taliya gaas inta weligay ma dhicin xeradii aan xukuumay albaabka laga xidho waa kow konton afraad albaabka laga xidhay
maxaa layga xidhay waxay yidhi haddaan waxba noo kari karin naga tag qofku han buu yeelan karaa han ayuu yeelan karaa waxaan rabaa hankayga inaan marnaba dib hoos u dhigin hankayga maanta waxa weeye inaan noqdo madaxweyne ku-xigeen waftigan balaalena oo hogaaminaya loo soo galbiyay magaalada Buuhoodle markii dambe waxaa inta badan lagu soo wareejiyay wadooyinka waaweyn ee magaalada Buuhoodle hareertumay dadweynaha deegaanka Buuhoodle kuwaas oo taliyaha ku soo dhaweeyay gacmo furan taliye ku-xigeenkii hore ciidanka daraawiishta General Deer Xaaji Cabdi ayaa kulamo waxa uu markii dambe hotelka weyn ee Cabdiguli Balance Buuhoodle kula qaatay waxgaradka deegaanka Buuhoodle ee saraakiisha ciidamada waana musharaxii koowaad ee ka soo jeeda gobolada Sool Sanaag iyo Cayn oo ah madaxweyne ku-xigeen oo la hadda shaaciyeen xulkaas uu tartamayo waa Cali Cismaan Ismaciil Dhagjar wararka telefishinka caalamiga Ismail News magaalada Buuhoodle